waxaa maanta si rasmi ah uga bilaabmay guud ahaan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ololaha doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada waxaana ololaha u lahaa xisbiga mucaaradka ee codkumanaan ka mid ah bulshada qaybaheeda kala duwan ee taageerayaasha golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee xisbiga mucaaradka ee cod ayaa isugu soo baxay fagaaraha khayriyada ee magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer halkaas ay kala hadleen xildhibaanada xisbiga mucaaradka ee cod uga tartami doona golaha deegaanka iyo golaha wakiilada waxaana kala soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cod waxaana soo bixi doona gobolka Togdheer sool sanaag waxay samayn doonaan inay dawladda ku qasbaan in golaha baarlamaanka Burco loo soo raro waxaan idin leeyahay sidaa u soo baxdeen Burco aniga igula xisaabtama inaan dawladda bad soo rarno haddii ilaahay ka dhigo waa hadday doorataan xildhibaan murashax u sharxan golaha wakiilada qaranka waxaan ballan qaadayaa in aan gobolka Togdheer ka saaro qoqobnaanta iyo kala xilxilka iyo kala sumadka iyo kala xiraysadka antayduna waa dawacada hadda deegaanka degmada Burco doorashada dhici doonta 31 May ee bishan bulshada gobolka Togdheer isku duuban iyo taageerayaasha maanta iyo halka soo buuxdhaafiyay dhammaantood waxaan ugu baaqayaa aqoonyahanka dhalinyarada inay fartooda igu deeqaan taageerayaasheeda waxaan ugu baaqayaa inay amniga ilaaliyaan reer Burco ama guud ahaan gobolka Togdheer gaar ahaan waxaan u soo jeedinayaa inay doortaan musharaxiinta ka sharaxan xisbiga cadaaladda iyo daryeelka waxaana ay musharax ka tartamaya gobolka Togdheer astaantiisu tahay diig waxaan si weyn haddii aan guulaysto reer Burco iyo reer Togdheer ay jaanis siiyaan waxaan u taaganahay la xisaabtan tanaya inaad codka siisaan taageerayaashada faraha badan leh musharax injineer Salmaan Nuux Yuusuf oo astaantiisu tahay wasiiratu Burco ee cashuurtooda gobolada kale lagu dhisayo inaanu xeerarkii iyo sharciyadii maxaa heeday wadanka magaalada Burco lagu dhisi lahaa inay hirgeliyo golaha baarlamaanka ayaanu u taaganahay calaamadeedu waa baska waxaan ahay musharax u taagan golaha wakiilada astaantiisuna tahay qalinka aan u baahanahay in aad codkiina nasiisaan waxaa igu lamaan musharax Cabdilaahi Ibraahim Cabdi oo lambarkiisu yahay 109 aad wax ku bedeli kartaan hadda yalsanina codkiina siiya qofka aqoonta cilmiga u leh aadan jaamac Cabdilaahi astaantaydu waxay tahay in ay waa gruubka ifaya Togdheer taageerayaasheeda iyo 105 waxaan u sharaxanahay golaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland astaantaydu waa buug waxaan martiidii ka hay inay codaysaan 31 May astaantaydu waa 3 wan isu sheegi mayno Cabdirasaaq waa isgaranaysaan anigu isugii fasiri maayo aad baa mahadsantiin waa 3 wan iyo gaashaanka insha Allah taala maalinta 31 May iyo Cabdirasaaq Hiiro waa furihii waxa weeye wax qabadka weeye gobolkan waxaan daraaban yahay waxa loo baahay in dawladda Soomaaliland hargeysa soo dhaafto oo noqoto mid gobolkan soo gaadha furaha sanadiisida ugu balan qaada inaan maanta soo saaraysan insha Allah astaankaygu yahay gacantaas shanta farood iyo gacantaas dadka bableeshika waxaan u sheegaynaa gobolka deganna si sharaf leh codkooda maalinta noo siiyay hadii alla ka dhigo soo ballanteenu sidaa ma aha astaantaydu waa kursigii loo baahnay in lagu fadhiisto weeyaan waxaan noo ballanaa 31 May iyo inaynu u wiilino gobolkeena Togdheer iyo codka dhammaan musharaxiinta xisbiga ucid uu soo xulay ayaynu u baahanahay inaynu codayno aniga calaamadayda haddaan ku celiyo waa 101 weeye dhammaan musharaxiinta ucid uu soo xulay waxa weeye in loo codeeyo weeye waxaan idinkula talinayaa ama idinku boorinayaa inaad noo codaysaan 31 May marka lambarkaygu 103 waa inooyo farta oo aad siisaan inanta kaliya gobolka ka sharaxama waa kaloo calaamadayda ay tahay aqal Soomaali waxa badan qabya inaan dhisnaan diyaar u nahay Soomaaliland ha noolaato xildhibaan Cabdisalaam ay garab taagana waxa weeye lambarkiisu 102